madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Galmudug oo socdaal shaqo ku soo gaaray magaalada Laascaanood ee xarunta maamulka SSC Khaatumo waxa uu soo dhaweyn ballaaran kadib uu kulan la qaatay madaxweynaha maamulka SSC Khaatumo mudane Cabdiqaadir Axmed oo Cali Firdhiye kulankan oo ka qabsoomay qasriga madaxtooyada waxa madaxweynaha Khaatumo ku wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka maamulka SSC Khaatumo Dr. Maxamed Cabdi Ismaaciil Shiine xubno kamid ah xogayaasha maamulka Khaatumo ururada haweenka iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka la soo dhaweeyay ee maamul goboleedka Galmudug waxaana hogaamiyaha maamulka SSC Khaatumo uu sheegay inuu ku faraxsan yahay socdaalka madaxweyne ku-xigeenka Galmudug ku soo gaaray Laascaanood waxaana ku soo dhaweeyay caasimadda maamulka Khaatumo waxa maanta marti noo ah oo aan ku soo dhaweynay caasimaddii maamulka SSC Khaatumo ee Laascaanood walaalkay saaxiibkay madaxweyne ku-xigeenka maamulka aan walaalaha nahay ee Galmudug madaxweyne Cali Ciid iyo wafdi uu hogaaminayo oo ka kooban xildhibaano heer federaal iyo kuwa heer maamul goboleed oo Galmudug ah madaxweynaha iyo wafdigiisaba waxaan leeyahay soo dhawaada waxa la oran jiray soo dhaweyntu gacmo furan iyo qalbi furan wax kasta oo furan ku soo dhawaada wax kasta oo furan ku soo dhawaada sharaf bay tahay aniga iyo reer SSC Khaatumo in maanta aanu ku qaabilo madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdigan ballaaran ee hogaaminayo magaalada Laascaanood oo runtii uu nasiib u yeeshay inuu noqdo mas'uulkii Soomaaliyeed ee ugu horeeyay ee soo booqda Laascaanood booqashada maanta uu noogu yimi madaxweyne Cali Ciid waxay ka dhigan tahay Laascaanood aad ogeydeen dhibaatadii ka dhacday iyo duqeyntii iyo barakicintii iyo burburintii maamulka uu horjoogaha ka yahay Muuse Biixi ay ka geysteen kadib inuu madaxweyne ku-xigeenka Galmudug maanta uu soo booqdo oo uu yimaado oo uu indhihiisa ku arko laba taariikhood oo isdaba jooga taariikhda hore oo ahayd dhibaatadii meeshan ka dhacday iyo inta ay leeg tahay inuu isdul taago oo indhihiisa ku arko uu indhihiisa haddana ku arko magaaladii sidii looga barakacay sidii loo dumiyey oo dadkeedii ku soo noqdeen nolosheedina ay dabiici noqotay dadkuna ay ku sugan yihiin xaalad nabadgelyo madaxweyne ku soo dhawow waxaan filayaa iskamay imaan inaad noqoto mas'uulkii ugu horeeyay ee na soo booqda waxa sababay oo ku soo dadajiyay waxa weeye dareenka walaalnimo iyo Soomaalinimo iyo xilkasnimo kugu jira oo aad istiri meeshii dhibaatadu ka dhacday indhahaga u soo geyso waa kaaga mahadnaqaynaa aniga iyo reer SSC Khaatumana mar kale waxaan ku leenahay soo dhawow waa gurigaagii waa deegaankaagii haddaad shalay Galmudug iyo Dhuusamare madaxweyne ku-xigeenka ahayd halkana madaxweyne ku-xigeenka badkata geestiisa madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug waxa uu ka mahadnaqay soo dhaweynta ballaaran ee ay u sameeyeen madaxda maamulka Khaatumo iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala gedisan waxa uu sheegay in socdaalka uu ku soo gaaray magaalada Laascaanood ee xarunta maamulka SSC Khaatumo inay horudhac u tahay socdaal kala gedisan oo madaxda maamul goboleedyada dalku ay ku imaanayaan caasimadda maamulka Khaatumo ee Laascaanood waa madaxweyne ku-xigeenkii koowaad ee ka socda maamul goboleedyada ka jira dalka ee soo gaaray caasimadda maamulka SSC Khaatumo iyadoo maamulka Khaatumo uu haatan jirsaday wax ka yar 6 madaxweynaha dowlad goboleedka Khaatumo madaxweyne ku-xigeenka wafdiga xildhibaanada federaalka ee la socday iyo senataradii hore la taliyayaasha iyo mas'uuliyiinta kale ee Galmudug ka socda dhammaan mas'uuliyiintii halkan fadhida mansab walbay ku fadhiyaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaan bacdigeed farxad weyn bay ii tahay in aan maanta soo booqdo magaaladii buluugga ahayd ee Laascaanood in badan baan ku taamaya xaqiiqdii inaan soo booqdo oo aan arko duruufaha ay dadkani ku nool yihiin iyo dowladnimadii halkan laga sameeyay u hana qaaday ilaahay hadduu yiraahdo intaan meeshan joogo waxaan la kulmi doonaa madaxda dowladda Khaatumo dhaqanka dhalinyarada iyo haweenkaba intaba waxaan iska warsan doonaa Khaatumo State iyo sidii loo taabagelin lahaa iyo sidii loo xoojin lahaa
socdaalkaygu ma noqon doona kii u dambeeyey wuxuu noqon doonaa socdaalkii ibafurka u ahaa dowlad goboleedyadu inay halkan soo booqdaan insha allah. waxaan rajeynaynaa maamullo kale oo koonfur galbeed ka mid tahay madaxweynahoodu inuu halkan soo booqdo, wadadaasu inay furanto, magaaladan ay noqoto qibladda siyaasadda Soomaaliya loo soo aado. sidoo kale waxyaabahan iska warsan doona waxa weeye galmudug iyo qaatumo maxay iska kaashan karaan dhanka arrimaha bulshada, dhanka amniga, dhinacyo badan ayaan dowladda iska wareysan doonaa ilaahay hadduu yiraahdo waxaan iska kaashan karno. waxaan kan iska wareysan doonaa ilaahay hadduu yiraahdo wax badan oo naga dhaxeeya ayaanu iska wareysan doonaa. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ka mahad celinayaa soo dhaweyntii qiimaha badnayd ee laygu sameeyey magaalada, afka magaalada laga soo galay ilaa halkan.